dhalinyaro maanta anigana sharaf iyo karaamo weyn ii tahay inaan meeshan idinkugu imaado fursad isku maynaan helin intii xamar la joogo muddadeedu aad u gaabneed laakiin halka aanan fursad isu helnay inaan idin soo daba kacoon halkaan imaado runtii dagaal haddii la galo waa la kala bartaa dadka madaxdaa la kala bartaa saraakiishaa la kala bartaa askartaa la kala bartaa dhammaan dadka waa la bartaa qof walbana doorka uu qaato maalintaas ay maalinta adag ay ahayd maalinta fiican oo nabaddu ay jirto nin kasta ahi waa fiican yahay waa xaragoo yaqaana waa faani yaqaana waa muxuu ka araaday meel kasta waa ka soo bixi karaa laakiin maalinta ay xaaja adkaato oo ay maxaanku yidhaahday howluhu adkaadaan maalintaas ninka ka soo baxa hawsha ee si fiican uga soo baxa waa ninkaas ogoobo ogow dhimasho waa maalintii alla qoray alla dhintaa dhinta ee ma dhinto muxuu ahay xabada meel xabadalahu tegey iyo meelaan xabada lahayn uu joogay muxuu ahay ma disho dadka ajasha maalintii ilaahay kuu qoray adigoo xabiibiya maalintaasaa dhimanaysaa dhaafi maysid ama sariirtaada ku dul dhimo ama maxaanku idhaahday madfac ha kugu dhaco ama xabad caadi ha kugu dhacdo ama malaariya ha ku disho maalintaas unbaad dhimanaysaa ka hor dhima maysid laakiin intaad nooshahay inaad cizi iyo karaamo ku nooshahay oo aad maxaanku idhaha karaamo darro aanay ka dhicin dhallinyaro ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed asoo keligiis ah oo kaashanaya un dadka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ayaan dagaal soo bilownay muddo sanad ka hor ah dagaalkaas uu soo bilaabay maalintaas waa la qusquslahay dad badan waxay lahaayeen hadday iska soo noqon doonaan ma iga meel tegayo oo dadkanaga waxaa loo sheegaya war waa idinka soo tegayaan hadday idinka soo tegayaane muxuu ahay waxba yaanay muxuu ahay idin waxaynin annagoo intaan ka tiro yar idinku aadan qayb ka ahayn dhallinyaro kaloo idinla walaalihiin oo meesha idinkaga soo horraysay ay joogaan tiradoodu aad u yar tahay qalabka ay haystaan uu aad u yar yahay ayaa amisoonoo yaabanoo lahaye meeshaana idiin joogaynaaye socda ayay halkaa ka soo dhaqaaqeen waa yimaadeen berigaas amison annagu kumaanaan qanci karin soomaaliyan nahay waa dagaalan u soconnaaya nala gala oo waxay noo arkaayeen dad aan dagaalku dhab ka ahayn oo aan meelna u soconin laakiin hadda maanta way fahmeen inaan dagaalku dhab naga yahay annaan wax qabsan karno annagu wakhti ma qabno dalku waa dalkeennii cid aan u fadhino meel oo aan sugayno oo dawladdiiyo xoog laho wax walba u dhammaystiran yihiinoo kartoon ku jirto ayadoo waddabaaka ku jirto noo keenaysaa ma jirin gacnaheennaan shalay dawladda ku duminnay aabbayaashiin aniga ilaa cimrigiisii inaan waagaas joogo welina noolahay gacmahanaga qof nagu kaalmaysay dawlad duminta ma jirin xaqiiqada dhabtaa waxay tahay dawlad dhisiddana qof nagu kaalmay karto waa la helaa laakiin qof noo dhisi karto dawladda heli maayo shalay dawladda annagaa duminna maantana annagaa dhisayno dawlad dalkan kama hana qaadi karto kamana dhismi karto inta nimankaas khawaarijta ay joogaan dalka afarta dalka dadka diinta iyo dawladda afartaba nimankaasaa aad dabar inta ku xidhay yaa meel la fadhiistay diintii waad aragteen wax kale iska daaya dugsi qur'aanadii xataa waa xidheen meelaha ay muddo dheer joogeen dugsi qur'aankii xataa waa xidheen wax kale iyo barasho kale iyo aqoon kale iyo iska dhaaf nolosha kaloo ay dadkeenna ku noolaayeen muddadii dheereedna waad arkayseen waanaad ogeydeen waad soo aragteen meelaha degaanada waa tagteen horumarka ka jiro wax la'aanta maxaanku idhahdaa 1000 sano ka hor sidii dadkeennu ay baadiyaha ugu noolaa jireen maantana ugu nool yihiin qarniga 12aad waxaana u sababa waa nimankaas cadowga ah ee maxaanku idhaha ummadda intaas haysta dhallinyaro waxaan rabnaa dalkeenna iyo dadkeenna inaan meeshaas ka keenno idinku duruufihii aad ku soo korteen ood ku soo barbaarteen oo aad ku noolaateen ood wax ku barateen carruurta aad dhalaysaan ka duwan duruuftaas duruuf ka duwan inay ku noolaato oo ay ku barbaarto oo ay wax ku barataan rabnaa cabsidu waxba noo tari mayso cabsidu waxyaabaha ugu horreeya fashilka keenay tahay qofku hadduu cabsado ma aha xabadda keliya lagama cabsadee dadaa go'aan inay gaaraan cabsanayo dadaa meel inay tagaan ka cabsanayo dadaa maxaanku idhahdaa inay runta sheegaan ka cabsanayo dadaa qof walba cabsi
intaba aad kelmadda aad aaminsan tahay inay sax tahay aad ku taagan tahay cabsidu waxba ma kuuma celinayso waa ku fashilinayle waa ku curyaaminay waxtarkaagay hoos u dhigay huuhaa iyo been iyo maxaanku idhahdaa waxaan macno lahayn inta ciidamada lagu soo dhex daadiyo waan ogahay inay kuwa xunxun oo soomaali ah oo ka arka inay fashilku inuu ayagu guul yahay waa nacasi ileena fashilku qof soomaali oo adduunyada korkeeda saaran ama New York ha joogo ama maxaanku idhahdaa maxaas ha jooge ma jirto qof soomaali oo maanta shabaab in lagu fashilma ama shabaab guulaysta maslaxad ku qabto mara nacasnimo waa halkeeda garasho waa halkiisa aan kala garanba wixii saxda ah wixii qaladka ah maangaab waa halkiisa laakiin maanta shabaab guul shabaab maanta qof ay maslaxad u tahay oo ka macaasha yahay ma jiro laakiin xaggee loo noqdaa aad noqotide aan wada noqonna dhammaanteena xamar aan isugu tagne ma ku ammaan helaynaa ma ku noolaanaynaa nolosha kale iyo haybadda iyo sharafta haddii laga soo taga xataa ammaan aan ku kalsoonnahay oo aan ku ledi karno la seexan karno ma ku haysannaa xamar haddaan isugu tagno dhammaanteen jawaabtu waa maya kuma haysanno horena ugumaanaan haysanin haddana kuma haysanno kumana helayno hadda maanta xamar dadku waa ammaantamaanoo waa fiican tahay xamaroo sidii hore waa dhaantahay waxay ku dhaanta waa adinka xamar waxay sidii hore ku dhaanta waa adinka la'aana nimanka xamar qarxida waaweyn oo qarxii soobo kala keeni jiray maanta ma keeni karaan koow waay horta waa mashquulsan yihiin oo adinkaaba mashquuliyo baqay ku jiraan waa niman baqasho ku jiro oo cararaya firaaqo uma helaan waqtina uma haystaan labo kuwa adinka oo kale ahaa u taagan albaabada xamar laga soo galay bannaankeedoo dhan oo hor taaganoo maxaa fashilinaya oo meesha ku celinaya oo aanay soo mari karin marka dhallinyaro waxaan rabaa maanta waa maalin naftaada adiga iyo nafta ninka xamar jooga daarta dheer ee maxaan ku raa apartmentiga inta kireystay ku dhex jira ee ku nool isku mid waay meeqaa naga dhimato oo aan dagaal ku dhiman maalin walba inta dagaalka nooga dhimato waxaa ka badan inta caadi nooga dhimataa ka badan haddii lasoo tiro koobo caadi malaariyaa dishay kansaraa ku dhacay maxaan ku ihahdaa beerkoo beelay maxaan ku ihahdaa staroga ku dhacay oo lug iyo gacanaa dhacday kabacdina waa dhintay saaron shilow galay waxaa la leeyahay oo dhan ayaa boqolkiiba boqol ka badan inta forontiga ayagoo dagaalamaya ku dhimanaysa ama ku dhaawacmaysa waxaan rabaa dhallinyaro waa guulaysanay meesha aan joogno iyo meeshii laga soo bilaabo bal eeg inta u dhexayso beledweyne iyo inta ama muxuu ah meesha la yidhaha bacda oo u dhexaysa beledweyne iyo matabaan u dhexaysa laga soo bilaabo ilaa meeshaan wiilal saaxiibadiina walaalihiina kayrkiina ayaa intaas soo waday oo aan ilaahay aan haysanin maanta qalabkaan aad haysataan bacda ninkii lug ka soo bilaabay bacda tuulada ninkii lug ka soo bilaabay aadan yabaan oo ku yimid oo ku tegey asoo qalabka uu sitoo dhan weliba garabka ku sita baabuur ay jidka mar ka soo qafaashaan biyaha iyo waxa ay ku doonto soo saarta laakiin nimanka gorgorleeyo aad aragteen qoryaha waaweyn oo ay wadaan culayska badan garabka ayaga ka mid ahay garabka ayagoo u saaran yahay meesha inta ka soo lugeeyana meesha ku yimaadeen maanta intii hore waa dhaannaa waa ka qalab badannahay waa ka tiro badannahay dabcan waana ka tayo badannahay kaalmada cirka aan haysanno maalintaas maanaan haysan qalabkaan maanta aan haysanno cusub maanaan haysan aad iyo aad ayaa duruufaheennu ahayd laakiin maxaan haysanay niyadaan haynay niyad maantana weli niyaddii waa haynaa maanaan niyad jebin cadowga uhiilintiisu dimuqraadiyad ma gasho marka dhallinyaro guul iyo khayraan idiin rajaynayaa meel kastoo aad joogtaan sidaanoo kalean idiin soo daba kaceenna xafiisyo aynu ku dhishina intaan iska fadhiisanno orda adika dagaalka aada idinma lihin waa idin daba soconnaa maalin walba inta la idiin sheego kalaa la ii sheegaa baabuur qaraxaa jidka kugu jiro waa lagu sumaynaa helicopterka asaaran tahayaa muxuu ahay zuuyaa loo diyaariyo waa la soo ridaa ha isku bixin ha ka dhicin ha yeelin maalin walba intaasaa fariintii ugu dambayso xalal iisoo dira haddaad aragto waad yaabaysaa hadda anigana intaa idiin sheegay waa iga dhab
shabaab inaanu idili karin inaan aaminsanahay inta qadarteydii alla maalinta ii qoro inaan dhintay ay wax ka dhiman yihiin leanna ilaahay subxaanahu wa tacaala ayadihiis qur-aanka ku yidhi soo maha dhimashadaada saacadna lama soo hormarinaayo saacadna dib loo dhigi maayo eeg ilaahaa yidhi saacadna lasoo hormari maayo dhimashadaada saacadna dib loo dhigi maayo maalintii laguu qoray inaad dhimato maalintaasaad dhimanay xaaladaan doonto ku sugnaa wiilashii naga dhintay shuhado waaye waa kuwa shahiidiinta ah oo rasmiga ahoo la hubo oo ilaahay ayadiisa qur-aanka ku caddeeyo waaye kuwa naga soo hor jeedana ilaaha caddeeyey inay yihiin kuwa aanan janno iyo agteed meelay ku taalla aan tegayn alla agtiisana aan naxariis ku haysan khawaarij markii la yidhaha khaarij can addiin yaa waa maxay diintow ka baxay waa diinta bannaankeeda diintow bannaanka ka joogaa waaye khawaarij macnaheeda dhallinyaro adinkaa waddada saxdaa ku taagan adikaa ilaahay waddadiisii ku taagan adikaa tii soomaalinimada ku taagan adikaa cirdigiinna iyo sharaftiinna iyo karaamadiinna iyo kuwa dadkiinna in kor loo qaado adikaa ku taagan waxyaabihii in loo dhinto oo loo dagaalamo oo ilaahay jideeyey ou yidhi waa loo dagaalami karaa waana loo dhimo karaa yay ka mid tahay sharaftaada iyo karaamadaada diintaada dadkaaga cirdigaaga ilmahaaga waalidkaaga hooyadaa dadkaaga waxa loo dhintay ka mid yihiin oo diintuna ay ogoshahay ilaahayna uu dadka farayba dayuusnimo ilaahay dadka ma farin dayuusnimo ilaahay dadka ma farin dadka dhiiranaan ay ku dhiiran yihiin waxa saxda waxa aad ku taagan tihiin boqolkiiba boqol wixii saxda ahay waa wixii saxda ahay oo alla raalli ka ahay annaguna aan raalli dowladdiinuna shacabka soomaaliyeedna uu raalli ka ahay maanta meel kasta taagan yahay intaas waxaa ii dheer dhallinyaro laysku darsanaa maayo dadka goobaha cadowga aanan soo bannaynin ee hor taagan weli ee adiku aad ugu horrayso meeshaan maanta u fadhidaan inaad usii dhaqaaqdaanna aad diyaar u tihiin la mid ma noqon doono ilaahay idinkiis kii ayadoo cadowga la hor taagan yahay inta soo baxay qorigiisa garabka saartay ee xamar tegey ama qorigii dhex ku gatay isla mid noqon maysaan ilahay idinkiis maanta saacaddaas aan ila hadlaya niman saraakiila ayaa xirxiran oo shalay la xirxiray qaar kalena saakaa la xiray dembi ay geysteenaana loo xiray qaanuunka militariga iyo discibliin militaar waxay ka qabta maxkamadda militariga waxay siisowna yeelanayaan bannaanka laguma tooganayo lama xirayo shabaab maahin annagu dowladaan nahay dowladna waa qaanuun iyo sharci ay ku kala dambaysaa shareecadaa la horgeynaa shareecadaas wuxuu ka helo uu leeyahay ninkii dembi leh kaan dembi lahayn inaanu dembi lahayn aloo dayna waa la soo daynaa raggiinaan marka maanta goobihii ku haray hadda waa lasoo wada noqday in badan oo ka mid a way soo noqnoqdeen inta kalena xamaray ku aruursan yihiin ilaahay idinkiis way soo noqon doonaan saraakiisha si gaara maamaadii ciidamada maxay ahayd sarkaal askari xun ma jire sarkaal xunaa jira saraakiishu haddii xataa askarigii iyo sarkaalku isku dembi ay galaan sarkaalkaa dembiga iskale dembina badan askarigu inuu dembi la-aan noqonayo maaha hadduu khalad galo khaladkiisa u leeyahay laakiin inta sarkaal hor joogo oo sarkaal uu amrayo oo askariguna amarkii qaadanayo oo askari fiican yahay sarkaalkaa eedda ay raacaysaa askariga inta badan waa ka leexanay laakiin mas-uuliyad wadareed wax la yidhaah mas-uuliyad wadareed wax la yidhaahana wada saaran dhammaanteed waa midda anigoo madaxweynaha jamhuuriyadda ah xafiiskayga iga soo kaxaysay oo maanta i keentay maxaas berri iyo berri dambena meel maxaas ka sii horraysa aan raba inaan tago oon u sii socdo mas-uuliyad wadareedku waa taas waana wada saarantaha kulligeed waa u kala sarraynaa mas-uuliyadda nin walba ninka kale intuu ka sarreeyo ayuuna uu ka mudan yahay dembigeedana uu ka qaadayaa ciqaabteedana uu ka mudan yahay laakiin ninna mas-uuliyadda kuma eed la'aanayo nin kasta waa mas-uul wuxuuna mas-uul ka yahay wixii la raaciyey waxa lagu raaciyey naftaada ugu horrayso nafta saaxiibkaa walaalkaaga dhinacaaga taagana ugu horrayso aa ku xigta waxaa ku xiga qalabka lagu dhiibay yaa ku xiga magaca iyo heybadda iyo sharafta aad xambaarsan tahay oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed la leeyahay ayaa ka mid ah mas-uuliyadahaas oo dhan
inaad ilaaliso ayay kaa rabaan dhalinyaro guul iyo khayraan idiin rajaynaa mar kale waa idinku bogaadina waa idinku ammaana dulqaadka iyo duruufaha adag aad u dulqaadateen duruufo kaloo adagna waa nagu soo wajahan yihiin dagaaluu dalku ku jiraa dalkiinnu waa dal tabar yar dal weyn oo maxaanku yidhahda wax walba haysta maaha laakiin dadkiinna iyo dawladdiinnaba waa idin garab taaganyihin guul iyo khayr baan idiin rajaynayaa ducada iyo allabariga ummadda soomaaliyeed oo dhammaad haysatiin taasaana wax weyn noogu wada fadhida dhammaan dadka soomaaliyeedaa idin duceeya masaajiddaa salaadda looga qunuudaa in ilaahay idin guuleeyo sujuuddaa dadku mugay sujuudaanaad in badanoo dadkeenna ka mida idinkugu duceeyaan ee ilaahay u baryaan inaad guulaysataan waana guulaysanaysaan li'anna waxaa ku taagantihiin waddadii saxdeed guul iyo khayraan idiin rajaynaa insha allahu meeshaan meel ka sii xaggayso gadaalo hadda aan cadowga ku sheegayn inuu joogo inaan mar kale iyo mar kale ku kulanno oo aan isku aragno ayaan rajaynaa haddii alla yidhaah الله أكبر الله أكبر ولله الحمد كو لابا سجا soomaaliya ha israacdo israacinteedana hawshaad ku jirtaana ugu muhiimsan dagaalkan haddaan ku guulaysanno wax badan oo 30 sano la soo dhaafay aan gaari weynaan gaaraynaa waa gaaraynaa insha allah ogaada ما شاء الله guulaysta adig kale insha Allah taala Soomaalina waa israacay ficilka isku raaci lahaydna waa ku jirtaan afkana waa ka dhaadeen qalbigana waa idinku jirtaa ficilkan waa ku dareynaa diyaaliira Soomaaliya waa israacay waa midoobay insha Allah taala dawlad xoog badan oo dalkan uu yaqaana gobolkan geeska Afrika iyo Afrikana waa laga yaqaan dalkan taariikh uu leeyahay waliba militariga Soomaaliya magac uu leeyahay wiilal adigoo kala ah bir waa maqasheen Soomaaliya xalana meesha lagu magacaabo maxaa ninka xalana la yiraahdo محمد عبد الله حلنا اللي يراه حلنا عسكري صوماليات oo ciidanka xoog dalka ka tirsan oo ah goobaha inta dagaal lagu galay oo aad iyo aad loo galay oo cadawga ku soo xoogeystay ayaa dib loo soo riixay markay meeshii ka soo baxeen dib u soo baxeen ayaa wuxuu arkay calankii oo meesha ka taagan oo laga soo kala tagay keligiis u noqday keligiis u noqday calankii soo furay asoo dhaawac oo calankii wado keenay waa dhintay asoo dhahayo cadawga bir maaha asoo dhahayo ayuu dhintay meeqa maalintaas dhimatay dagaalkaas ku dhimatay boqolaal Soomaali ah aad u fara badan yaa magacoodii laga yaqaanaa qofna xalana laga yaqaan maxamed cabdullaah xalana laga yaqaan qof kale lagama yaqaan waxa looga yaqaanaa wixii dadku ay sameeyeen dhan wax ka dheeri oo sameeyay waa la soo wada cararay nin walba naftii xoogaa uu yiri nafta badbaadi waa baxay asaan noqday kaligiis cadowgii soo socdo meesha ku soo socdo ku soo dhaw oo maxaan ku rafood soo xabada ridayo ku dhex cararo ku noqday calankii soo dajiyay oo soo duuduubo soo qaaday soo noqodka xabada ku dhacay dhowra asoo tacbaan oo ku soo dhacay maxaa ah ciidankiisi waa ku dhex dhintay ilaa iyo maanta magaciisi sidaas u jira وانا اللي هو حالنا ما انت انه دملها waa la hubaa hadaanu ficilkaas uu bilahayn xataa waa dhimalahay waa la hubaa ma noolaalahay marka muxuu ahay ajashu waa taas laakiin waxaan qabnaa khiyaaran leenahay wili saan u dhimanayno wili khiyaar waa leenahay wixii de shil lama filaan ah qofka ku dhinta waa gool laakiin qofkii kale nool oo waliba duruufo uu ka dagaalamo ay haysato ee dagaalamo waayahay sidii loo dhimo lahaay ma dooran
laakiin ninka asagoo frontiga ku jiro xabadda ridayo ay xabadi ku dhacday ee dhintay meel ka fiican uu ku dhimo lahayna ma jirto sidii loo dhimo lahaayo fiicneedna asaa doorto dhallinyaro mar kale iyo mar kale erayadaas aad ku dhawaaqaysa inaan rajaynaynaa kuwo dhabooba inay noqdaan ilaahay idankiis waana dhaboobayaan haddii alla yidhaah waa dhaboobayaa intaad adinku joogtaan ee calankaa buluugga ah muxuu ahaay aad gacanta muxuu ahay garabka bidixda ah oo idinkugu xiran yahay waa dhaboobaysaan riyadaas haddii alla yidhaah waa dhaboobaysaa ragga qaarkiisaan u jeedaayo calanka labada garabba ku dhegsaday sharaf waaye sharafaad leedihiin ummadda soomaaliyeed astaanta ee isu baadiyaha markaan joogno xoolaha waa suntan jirna soo maha sumaddii reer hebel uu leeyahay neefkan yaa la yidhaahdaa soo maha sumaddeennu waa taas sumaddeennu waa taas taas markii la arka soomaaliya la leeyahay sumaddeennu waa taas meel adduunyada iyo shirarka iyo meelaha markaan tagno meesha calanku yaallaan fiirsanaa calankeenna xaggee ka muuqda meeshaas aan tagnaa sumadda aan leenahay waay inay ciidda ku dhacana ma ogolaan karno inuu ciidda ku dhaco ma ogolaan karno cadow waa aragteen caalamo baasoon la garanayn oon macno lahayn nimankaas khawaarijta ah see looga aqbalaa diin iyo muslimnimo iyo inuu xeerada islaamka ku jiro ninka ay ka suurowdo inta soo maleegay go'aan soo gaaray 1000 qofood Soomaali inuu dilo hal daqiiqo bug hanti iska dhaaf ayda ma sheegid ma laha dadka aan dagaalka kula jirnaa waa dadkaas naxariis ma leh qaraabo ma leh qabiil ma leh jufo ma leh arxan ma leh la dhalasho xataa ma leh la dhalasho ma leh kan kula dhashay cudurkaas hadduu ku dhaco maskaxdu galaa cudurkaas hadduu ku dhaco aduu kaa bilaaba aduu ku dilaa kow maskaxdiisii yaa la qaatay waa la khalday hadday soo noqdaan haddaan qabanno ayagoo nool ma dilayno ogaada waa ka ballanna ayagoo nool haddaan qabanno ma dilayno waa daaweynaynaa madax muuqday midi saawira lagama quustaa la yidhi waa daaweynaynaa cudurka la geliyey ee fayraska ah ee maskaxda looga dhaqay ayaan ka saaraynaa mujtamac inuu dib ugu soo noqdo wiil Soomaaliyeed waaye waana anfaca waalidkiisu anfaca dadkiisu anfaca caruur hadduu leeyahay caruurtiisu anfaca marka dambana Soomaaliya u anfaca laakiin waxaan hubinaynaa cudurkii inuu ka baxay oo ka bigsoodo marka ayaga waxa ay suubiyaan oo dhan aan ka dhowrsanno ayagaa dadka suxun u dila ayagaa dadka bahdila ayagaa dadka karaamada iyo sharafta ka qaada annaguna inaan ficilkaas la nimaado ma aha hadduu isdhiibo oo qoroga meel dhigo waa la qabanaa waa la soo wadaa khuraafaadkii u aaminsanayn inuu meel dhigan karnaa ayadana oo iska saaro oo meel dhigo annaguna aan ku saacidno inuu iska saaro meel dhigo marka dhalinyaro aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waa guulaysanay ilaahay idinkiis in yaraa noo dhiman inta yaroo noo dhimanna ilaahay idinkiis waa guulaysanaynaa guul iyo khayraan idiin rajaynaa guulaysta dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh